telefishanka caalamiga Som News TV ayaa booqday beer weyn oo ku taala deegaanka Korjiga ee degmada Arabsiyo isla markaana ay leedahay murashax xildhibaan Maymuuna Daawud Axmed oo kamid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Gabley gacanta ku haysay waqtiga uu TV-gu booqday noocyada kala duwan ee ka soo go'a beertaasi murashax Maymuuna Daawud ayaa telefishanka uga warbixisay noocyada kala duwan ee halkaasi ka beerto iyadoo ugu baaqday bulshada Somaliland in la xoojiyo wax soo saarka dalagga beeraha oo igu soo booqday walaalkay Muuse saxafi Muuse oo uga sheekaynayo beeraheena nimcada taala iyo hadii aynu wax beerano sidaynu maxaan ku raahdaa aynu uga faa'iideyno waayo dhulkeenu waa dhul dihin dadkii baan ku foorarsanaynin laakiin caradeenu waa caradihin wax walo aan ku shubanaam wax kasta oo beeranaaba wuu baxaya waxaanan horta marka hore salaamaya walaalkay xasan dhuxul laab saalax oo maalin dhaweyd lahaa gobolka cagaaran ee Gabiley waxba ma beerataan waayo intii aan socday waxaan waayay buu xitaa indhahaygu inay qabtaan maxaan ku raahdaayay xabad tamaandha meel ay ku taalo ama yaanyo lagaga maarmo Itoobiya waxaan leeyahay xasanow beertii maanta beerteedii baan joogaa inaan kaaga soo sheekeeyana aad baan u jeclahay maxaan ku raahdaayay dhirtan aad arkayso waxa weeyaan waa fuulkii madooba laguma beeraheena laakiin waa tijaabiye maanta oo waa tijaabo walow biyo u baahan yahay meeshan joogana ay tahay maxaan ku raahdaa meel bilaabiya on xareeduna ku beero horta waa fuul insha Allah midhihiisana waynu sugi doonaa bal sida uu soo go'o waxyaabo badan oo beeray oo toon iyo baradho ka mid tahay iyo basalna waynu toon waayo waxaynu doonanaa toonta Yemen iyo Itoobiya dalkeena lama gareeyo lama qiimeeyo inaynu beerano geedka toonta waa kan waad arkaysaa sida uu baxday biyana uma baahna waxay ku baxday waa xareedeeni weeyaan waayo bustaan kuma taalo ceel biyana kuma taalo ceel biyelana kuma dul taalo waxay ku taalaa beer oo manaha waana toon oo adiga arkaya lama helo siidkeeda oo mid taalo dalkeena laakiin siidkii toontii midhaha ahayd oon dhilay baanu dib ugu ridnay oonu beernay waanay baxday waad arkaysaa geedahan oo kale markaas iyaga waxa weeyaan basasheenii dalka waayo waad arkaysaa sida u baxaysa de caradeena furan caafimaad qabta basasha Itoobiya inay ka waaweyntaa laga yaabaa walow ayna wali gaadhin oo darkaso inay curdin tahay may gaadhin waqtigii la guraayay oo waa basal curdina tamaandhadana waynu galeynaa oo maxaan ku raahdaayay de waa nimcada Ilaahayna siiyay bay kamid tahay alxamdulillah rabbil caalamiin oo tamaandhadu sida inoogu baxday waqtigeenu ku jirnaana waxa weeyaan guud dabayaaqadii waaba jiilaal baa la sugaya walow aa cirku tusan yahay haddana si aynu Ilaahay uga baranay inuu jiilaal dambeeyo ayaa laga yaabaa kana daalimayno waanu sii wadaynaa wax soo saarka iyo wax beerka dalkeenaba mudhaha Ilaahayna siiyay nimcoolida si aynu uga maarano dalka shisheeye inaynu dalkeena wax kala soo baxno diyaar baan u ahay waxaan u malaynayaa beertan ama halkan aan joogo 10 sano ka hor waxa ku beernaan jirtay sogsog iyo qurac iyo galool maantana waad arkaysaa de waayo geedkani waxa weeyaan afar jir saytuunka liin macaanta oo kale iyaga laftigeedu waa afar jir marka 4 sano ka hor waxay ahayd beer qardaa oo cidina waxba ka beeri jirin waayo de marka uma ahayn diyaar inaan wax ka qabto ismanaanan lahayn meeshan qorfayn biyo lahayn waxbaad ka soo saari karaysa laakiin markii aanu dib u xisaabtamay waxaan ogaaday in dhulka hadii xitaa qarbeeda ma bac biyo ku kaydsato dhulkana aad yaanbaysato inuu geed waliba qabsanayo beerana karto waayo inta aan wali aaminsanayna beeraha jaarkaygana waan u sheegaa waan ku marti qaadaa abaqaalka waan bixiyaa waan tusaasa loo beerayo de waxaan leeyahay la igu daydo waxa taagan aniyo walaalkay Subaar Sheekh oo markaa wuxuu maanta ii talaalayay geedaha liinta ee liin macaanta geedo waxa jira qarboosha oon talaalka qaadanin taasoo maanta isaguna ku hawlanaa inuu abaqaalka uu talaalo isagoo maxaan ku dhahay u faa'iideynaya meesha degan walaalihiina sida loo talaalo liin macaanta geedka qarboosha looga dhigi karo geed liin macaana liin qarbosh marka waxa ku talaali kartaa liin macaan liin beedariin bambeelo liinta kalena ku talaali kartaa saasaan ku qaadanaya saasuu markaa u qaadanaya uu noqonaya markaa geedkaad u baahan geedkaad u baahan buu noqonaya saalaan kan beedariinta qarbosh waa markii hore wala talaalay waxa beedariinta ma qurux sadarkiisa saasoo kale kana waa qarbosh kana waa qarbosh maantu talaalo macaan baad u bedeshay in kaliin macaan baan ku talaalnay hadii la yiraahdo ka isha dhowr bilood kadibna waxaan noqon doonaa liin macaan toddobaad kadib wuxuu isku bedelayaa geed liin macaan saayidka laga jari geedka soo fiila laga qaadan xasan waxaan ku soo gabagabeynayaa ballanteenu waa shaqo iyo wax soo saar iyo beeraheenu inuu dib ugu noqono idmilaahi kariim waayo waxaan ahay Muuse musharax deegaan
dee mar haddaanad waxba tabcanina waxaad wax kale ugu u raadisaa horta waa waali baan u malaynayaa waayo tana maxaan ku dhahay muhiimku waa tan markaad adigu wax qabsato ayaa dadka kalena wax u qaban kartaa iyo bulshadaada marka inaan imtixaanka anigu isa sii mariyo wax inaan qabsan karo aan tijaabiyo ayaa ka horeysa inaan bilaadanka xilkooda isa saaro dhaamkii aan ugu talagalay inaan beerta ka waraabiyo laag bay ahayd beerta ka dhex dilaacday oo beerta badankeedu wada baabiisay kadibna waxaan ugu fikiray inaan qabto oo biyaha ku waraabiyo beerta alxamdulillah nimcadii roobkii weynaa berigi dhaweyd inagu daay ayaa maxaan ku idhaahdaa ayay jaray oo waxaad arkaysaa halkaa bacaha ay ka muuqdaan jawaanadu way go-an yihiin ilaa halka ka dambaysuu ku joogay halkaa halkas yar baan kusoo sameeyey si aan biyahan yar uga faa'iidaysto labada wiig ay ku jiraan inaan ka waraabiyo beerta wixii ka dambeeyana dee kolleyto ama cagaf ama gacantaan ku qodi karo oon xidho haddii ilaahay idhaahdo waa biyo xidhaankii aan ugu talagalay inaan ka waraabiyo waana laag beero badanoo saasoo kale laaga u leh waxna laga qaban baa jira dadka haddaba beertoodu laagtu ka dhex dilaacday waa dad ay faa'iido u dilaacday waxaan leeyahay beerta uun xidha xadhigga afka uun ka qabta laagtaasi beertiina way buuxsamaysaa biyihiina way kuu qabanaysaa laagtiina way kaa xidhantay waanaad arki doontaa ilaa halka ay ku joogto waynu gaari doonaa insha allah muuse xuseen xasan som news TV gobolka Gabiley.